السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاليال دaqadan taaganahay marka hooska iyo qoraxda isqabanaysa iga raali hada walaalyaal dhamaantiin waa idin salaamaya walaalyaal waxaan rabaa inaan idin sheego inay jiraan laba waxyaabood oo bini aadamku ay qasab ku tahay oo maskaxdiisu ay maaragtay amar siinayso inuu ka qayb qaato isagoo maaragtay ay qasab ku tahay uuna diidi karin waxa kamid ah emotionka qofku marka aragto qof ooynaya waad isbedelaysaa waana ka qayb qaadanaysaa adoo ogeyn wuxuu ku ooyay ama qosolka sidoo kale meel lagu qoslayo waa qasab inaad qosashaa oo dhahdaa war maxaa meesha ka jira ood qosashaa awalan adigoon maaragtay ku talagelinin mar rabo walaalayaal inaa emotion idinka dhigo walaalayaal waxaan rabaa inaan la qaybsado xadiis nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu yiri maalinta yawmal qiyaamaha ayaa Allah subhanahu wa ta'ala adoonkiisa wuxuu leeyahay yaa ina aadamo had iso booqan weyday adoonka ayaa wuxuu ku jawaabayaa yaa rabbi adigoo adduunka dhan ku sugnaatay sidee ku soo booqanay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay adoonkayga hebel adoonka aan ilownay guryahooda ku ilownay oo soo booqan weynay adoomada aan ehel lahayn dad lahayn oo maaragtay xabsiyada ku jira isbitaalada ku jira guryahooda kali ku ah on booqa weyn ayuu ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala adoonkayga hebel maxaad u soo booqan weyd haddaad soo booqan lahayd agtiisaad iga heleed macnaheeduna tahay ajar xasanaad oo kala goyna ayaan ku siin lahaa haddana wuxuu leeyahay adoon kale adoonkayga ina aadamo maxaa raashin ii siin weyday adoonka ayaa la yaa rabbi aday dunida mulki ah oo ku sugnaatay sidee raashin ku siinay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku jawaabayaa adoonkaygii kuwa cuntada ku ooynaya hebel kuwa aan ilownay walaalayaal kuwa aan annaga lacagteeni ku bixinayno libsti ka bixinayno $100 iyagana raashin maaragtay baahi ku seexanayeen iyagii caruurtooda oo u diri weynay maaragtay oo xoolaha rabbi annagana siiyay uu nagu eegayay aan u diinay ayuu leeyahay rabbi maxaad cuntada u siin weydeen haddaad siin lahaydeen agtooda iga heleed rabbi subhanahu wa ta'ala nibcada haddaan ku shukrino oo wuxuuna siiyay aan bixino waa huwaal walaalayaal adduunya aakhiraba inaan helayno kuma fakrinaysaan walaalayaal waxa awoodaan inaad siisaan waxaan soo geliyay hooyo facebooka ku ooyeysa xadiiska nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka hadlay oo ilaahay leeyahay cunto maxaa ii siin weyday maamadaas waxaan rabaa cunto in la siiyo waxaan waxba ahayn la sheer gareeyaa fusuq oo dhan ayaa la sheer gareeyaa laakiin wixii wanaag ah oo la isfaraayo ma rabtaan walaalayaal maamadaas waxaa awoodin u dira guriga ku jirtay inaan dhisno waayo walaalayaal inaan ka warqabno waa waajib iyada milyan kale oo lamida baahidu way badan tahay laakiin $20 bil walba meel dhiga iska gooya Allah subhanahu wa ta'ala haddana wuxuu leeyahay adoonkayga ina aadamo maxaa cabitaan isin weyda waxaan cabbo adoonka ayaa la yaa rabbi aday adduunyada ku sugnaatay see ku siiya marka ilaahay wuxuu leeyahay hebel adoonkayga markuu haraasanaa maxaa waxa cabbo biyo u siin weyda ilaahay biyaha uu noogu faanaa uu noogu goodiyaa dhulka mire kama soo baxayaan ummadii waa aragtay u dhamaanayaan abaaraha biyo daraadood xoolaha way dhimanayaan walaalayaal biyo tuubooyin iska socda 24 hours ahaysanaa mana waarxana dadka waxaan ku waaninayaa maalintii yawmal qiyaama Soomaaliya oo dhan waa idin dacweynaya ilaahay marqaatu iiga inaan idin sheegay dadka hilmaameysaan ilaahay ka cabsada diricay gabdhaha ka bixiyaan $500 waxa ku biil kartaa 2,000 oo qof oo u siisid min $20 walaalayaal yaa la ilaawin ummadda yaa la ilaawin adduunku waa laba beri nin walba akoonkaaga aakhira kaaga fiican kan adduunka aad buuxsanaysid baraka malaha walaalayaal nabi ibraahim alayhi salaam wuxuu ahaa khaliilullah ilaahay saaxiibkiis waa nabiga kaliya loogu yeero khaliilullah wuxuu ku noqday dadka soo boqdo wax siin jiray gacantiisa furnayd ilaa ilmihiisi la amro inuu dadka ku sooro ilaahay
bishaaro bushoy haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku muuqanaya